sheeko sheekadan waa sheeko ku saabsan jinniga. bismillahi araxmaan araxiim, alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa saxbihi waman walaa waman tabica hudaah. ama bacd, halkaan walaalayaal maanta waxaanu biidni illaahi tacaala ku dhegaysan doonaa sheeko qof dumara oo dhibaataysan oo qabta jirooyinkan la xiriira shayaadiinta. website waxay soo gashay lagu daaweeyo dadka ama lagu mucaalajeeyo oo ruqyada iyo waxyaalaha la xiriira dadka lagu kaalmeeyo. waxay tihi bismillaahi araxmaan araxiim, assalaamu calaykum waraxmatullah. waa soo koobi doonaa sheekadayda, waxaana ku soo koobi doonaa dhowr qodob. waxaan leeyahay marka hore waxaan isticmaalay alqustulhindi. sababta u isticmaalay waxaan isku arkay caajis badan, shaqada aan nacayo, dadka inaan dhex galaayo nacayo, depression, miisaankaygoo ziyaaday, hamaansi badan markaa ruqyada dhegayso. dhakhtarkaan tegey, waxay igu dhaheen xogaa tawradkaadaa waxsi ka yihiin. markaasaa waxaan go'aansaday markaan dhegaysto qustulhindi faa'iidadiisa inaan isticmaalo. qaada yarihiisa ayaan ku bilaabay subax walba intaana quraacan inaan koob biyo ku qaso oo cabo. maxaan dareemay markaas ka bacdi muddo bil wax ku dhow markaan isticmaalayay acsaabteyda aad iyo aad u xumaatay. qof waxaa noqday aad iyo aad neerfoos u ah, riyooyin aad iyo aad u xun oo soona noqonaysa musqulo laga guuray oo kale ilaahani ciseeye, meelo khariban, meelo qashin iyo najaasaad ka buuxaan. qustulhindi marka waa iska dhaaf marka wax isku arag. mar labaada haddana waxaan bilaabay alqustulhindi. haddana waxaa meel kale ka akhriyey qustulhindi faa'iida inuu u leeyahay dadka qaba xasadka iyo wixii la xiriira. jinnigana wuu dhibaayaa maqlay, xanuuno kala duwan ayuu dareemaa jinni. markaasaa waxaan go'aansaday inaan markaan haddana qustulhindi qaato, laakiin markaan aan saliidda la yidhahdo oo la liibo ku daro oo dhibic aan u qaato salaad walba markaan tukado anoo akhrinaya qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas iyo aayat alkursi. maxaan isku arkay markaa arrintaasayta aan sameeyey anigoo sanka ka qaadanaya dhibic qustulhindi, madax xanuun aad iyo aad u daran oo iga dhigaya weliba inaan galgasho, ilin iska socota sabab la'aan, xab badan oo iska soo baxaya, duuf iska soo baxaya. anna ilaahani ciseeya mar walba waxaan isku dayaya marka inaan soo saaro xaakadaas. mar saddexaad qustulhindiga waan iska dhaafay, waxaan qaatay qustulbaxri ama qustul abyad. markaan qaatay qustulbaxri xoogaa yar waan fiicnaaday, raaxo badanaan dareemay. markaasaa waxaan go'aansaday inaan sanka ka qaato qustiga anigoo jiidaaya. alxamdulilah qustulbaxrigii ayaa sidii ku sameeyey, la'anna waxaan maqlay qustulbaxri wuu ka khafiifsan yahay qustulhindi. maxaan dareemay markaas? waxaan dareemay naqaska igu xirmaaya, dhuuntoo la igu dhigaya si xun, sanbabaho ciriiri aan ka dareemayo, neef fiican ma qaadan kari, ma neefsan kari. codkayga wuu isbedelay, sanbabahayga waxaad ka maqlaysaa qayro qirriq camal oo kale, cuncun, xab badan oo soo baxa, kalarro kala duwan leh, caddaan, jaallo, cagaar, orange iyo wixii kala duwan. hurdaan rabaa inaan seexda maanta o dhan, saacado badan aan seexanayaa, nafteeda xataa ma dareemaya ilaa la ii kiciyo. haddii hurdada aan ka soo kacayn waxyaalihii horaa u dareemayn weli waa dareemayaa. dhakhtarkaan aaday, dhakhtarka markaan aaday la ibaaray, waxaa la igu dhahay horta wadna garaac aad iyo aad u badan ay haysataa, zaa'id ah. xaraaradeyda kore u kacda 38 ayay gaartay. dhiiggii markii la iga qaaday oo la fiiriyeyna waxaa lagu dhahay infection meel jirkaada ka mid a ku jira, ma naqaano. laakiin oksijiinkaada waa yar yahay, waa inaa oksijiin lagu siiyo. daawo waxaa la i siiyey wadna garaaca iga yaraysa, kuleelka iga yaraysa, antibiyootigaa la i siiyey, saa u qaato. laakiin maanan qaadan. subaxii kale markaan soo kacay anoo fiicanaan soo kacay oo xoogaa degan, laakiin ma neefsan kari si fiican. sanbabaha hoostooda xanuun yaraan ka dareemaya, sida xanuun qof maaragta markuu almiinteynayo oo kale, murqaha oo kale ka gala. balqamkiina sidii u soo baxaya si badan, weliba kalaradaan kuu sheegay oo kale. waxaa ii ziyaaday marka cabur. waxaan rabaa inaan ogaado xaaladdan hadda aan dareemayo maxay tahay. mid dhakhaatiirta ay jiradan garan karaan miya oo waa tibbi, mise waa mid kale oo nafsi ah, mise waa mid ruuxi ah oo shayaadiinta la xiriirta. cilaajkana waa wadi karaa, wax dhiba uma arkay insha allahu tacaala. ii faa'iideeye, allahan ii faa'iideeye. hadalkaas oo dhan waxay soo qortay sanadka 2011 bishii 6 haddana isla markiiba way ku soo celisay. markii daqiiqada ka soo wareegtay waxay tiraahday jas waxbaa rabaa inaan ku daro noot yar. waxaan isticmaalaa daawo loogu talagalay qudda daraqiya ama toyradka waxa la yidhaahdo. weli waxaan isticmaalaa alqustulbaxri ayaa sanka qaataa. waxaana mar labaad ku soo noqday alqustulhindi inaan iskula dhibciyo markaa sanka. 2 beri ka bacdi sheekh website-ka wax ka qora oo dadka ku daaweeya geedaha kala duwan ayaa u soo jawaabay oo xijaamadana ku takhasusay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كجوابي حياك الله ولا لي. أسأل الله العلي القدير السميع العليم الفرد الصمد الواحد الأحد الغفور الودود إنه كعافيه لابد الدار نوك أستره. وحيالها أسأل شيكتي لن كما إيمان قستulhindi أما qustulbaxri. علاقكم لا حيرنا لما لها waxaasoo dhan waxay ka timaadeen jinniga. isaga weeyaan qofka waxaasoo dhan sameynaya sida u daashid oo iskaga dhaafsi alqustulbaxri iyo cilaajka aad uga tagtid oo isagana uga nasto cadaabta uu ku jiro. hadda xoogiisa si u soo ceshto iyo awoodiisa u soo ceshto markii uu bifadli illaahi caza wajalla uu bilaabay inuu daciifo. iyo qustulhindi awgiis wad qustulhindi cab sanka ka qaado, dabqaad ka saar, laakiin ruqyada aad iyo aad u ilaali. ruqya sharciya oo nabigeena ka sugnaatay sallallahu alayhi wasallam ilaali. qur'aanka wiigii hal mar dhamee, insha allah xaaladaada way fiicnaanaysaa. xijaamadana samee oo waxaad iska toobtaa labada mergi iyo tunka iska toob keliya. isla maalinkii waxay tiri jazaaka allahu khayr ya sheekh. ayib ya sheekh, waxaan jeclahay inaan ogaado xaaladayda sidaa nafteeda aan ruqyada ugu ilaaliyo. maxay tahay xaaladdan? waxaan qaba muxuu yahay? laanna waxaan ka shakisanahay inaan qabo xasad iyo cayn ayaan ka shakisanahay, laakiin ma hubi. xasadka iyo caynkani jinni may wataan mise caaradka waxa la yidhaahdo oo jinniga wuxuu la socdaa un qofkii maaragtay masi qaba mise qofka sixir qaba keliya la socdaa.
sheekhii wuu usoo jawaabay isla maalinka wuxuu ku yidhi xayaak illah waxaan rajaynayaa waxaan kuu sheegay inaad xoogga saartid ruqyada ilaali qur'aankan ay khatun caaradkan aan sheegaysidne ama wuxuu ka imaan karaa il ama xasad ama sixir ama masuu ka imaan karaa waxaasoo dhan daawadiisa waxa weeyaan waxaan kuu sheegay xoogaa ka hor khayrna ku bishaarayso niyaddana waxaad gashaa inaa caafimaadi doontid biidni illahi tacaala hadda adiga waxaa ku jirtaa cilaajkiaad ku jirtaa wad insha allahu tacaalaane shifana waa la kulmi doontaa ya caafimaad laba beri ka bacdi waxay tiri yaa sheekh alfaadil waxaad iiga warantaa markii aan caado qabo sidee qur'aan ku akrinaa qofka dumar qur'anka ma akrin kartaa sheekhii nafsirkiisa soo jawaabay isla maalinka wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu xayaak illah arrinta aad iyo aad u fududdahay laba galoofisa soo xiranaysaa qur'aanka saasa ku akhrisanaysaa safxadaha iyo beejta ku rogaysaa ama haddii kale combyuutarkaad ka akhrisanaysaa qofka xaa'idka qur'aanka way akhrin kartaa baaraka allahu fiik khayr naftaada ha ka xaaraantimayn isla markii laba beri ka bacdi marka way soo jawaabtay waxay tiri sheekh alfaadil barnaamijkii aa ii sheegtay alxamdulilah waan bilaaba maalinkii aad ii sheegtay waxyaalaha la kulma waxaa ka mid a madax xanuunkii waa iga tegey oo ii imaan jiray mar kasta oo sanka iskaga dhibciya alqustul hindi laakiin xanuunkii wuxuu isku bedelay luqunta iyo dhagaha waxaa moodaa irbado inay imudmudayaana moodaa marka aan ruqyada akhriyane waxaan dareemayaa kabaabyo aad iyo aad u badan xaggayga gacanta bidixda dareenka noocaasna waxaa moodaa in aniga ismoosiiye uuna soo noqonaya dareenkaas markaan akhriyay ruqyadii qur'aanulkariimkiina akhriyey waxaan dareemay raaxo aad iyo aad u badan culays ayaa waxaan ka dareemay tunka iyo madaxa dhexbartankiisa xaggiisa sare meesha la yidhahda yaafuuq sheekh meeshaas ma iska toobi karaa waxaad tiri qur'aanka wiigii mar dhammee ma awoodi way igu adag tahay laanna waan shaqeeyaa qasab miyaa inaan qur'aanka wiigii mar dhammeeyo haddii maalmo aan ku dirsado ma fiican tahay okey ma tahay sheekh raddigaada kariimka ayaan sugaya sheekhii wuu usoo jawaabay isla maalinkii wuxuu dhahay xayaak illah qustul hindi wad ruqyadana wad khatmulqur'aan hadba siduu ilahay kuugu fududaaya u dhammee laakiin ha ka badinin isbuuc laba isbuuc saddex isbuuc ha gaarsiinin yani isbuuc wax ku dhow ku dhammee alaqal wa insha allahu tacala ilahay wuu kuu fududayn doonaa ducadana badi suu ilahay kuugu sahlo stop madaxa dhexbartankiisa iska toob tunka iska toob labada mergina iska toob markaas ka bacdi waxaad ii sheegtaa waxaad la kulantay isla maalinkii haddeeraan soo dhameeyey toobintiiya tiri intaanan akhrinba hadalkaada waxaad iska toobday labada mergi iyo tunka insha allah laba wiig ka bacdina waxaan iska toobi doonaa mar labaad madaxa dhexbartankiisa marka tartiibkaas gaarka ah maan u sameeyaa mise farqiga u dhexeeya ma jiro oo tartiib kala jira ka siicankaas alxamdulilah waxaan dareemayaa fiicnaan badan iyo raaxo badan iyo qalbigayga inuu degay waxaana dareemayaa xoogaa inaan hadda si fiican u focus garaynayo shaqadayda wax walba tartiib ay igu soo noqonayaan markii xijaamada aan sameeyey xataa waxaan dareemayaa dhiigga maskaxdayda si fiican inuu ugu dhex socdo walaakiin weli waxaa dareemayaa xanuunadii irbadii iyo saridii la isaraayay iyo waxaan rabaa inaan seexdo jazaaka allahu khayran haddii laakiin aan rabo in aan mar labaad istoobo labada cagood tartiibka siduu noqon doonaa sidee u nidaaminaa taas sheekhii isla maalinkeedana usoo jawaabay bishii 6 sanadka 2011 xayaak illahu dhahay waxaad ka bilaabaysaa ayuu dhaha labada mergi dhexbartanka madaxa ku xiji hadhow waxaad ku xijinaysaa tunka insha allahu tacaala waxaad kusii xijin doontaa labada cagood ayaad u dambaysiin doontaa hadal ay soo qortay dadkii maamulka hayay hadalkeedii way kansaleen waxay ku xijisay isla markii jazaaka allahu khayran sheekhii alfaadil waxaan jeclaystay inaan kugu mahadiyo dardaarankaada laakiin aad ugu ilaaliyey barnaamijkaas siisay laakiin waxaan dareemaya alxamdulilah bifadli illahi caza wajalla iyo minnatihi inaa wax badan aan isbedelay waxaana jeclaystay inaan kuu soo qoro hadalkaani si dadka maaragtay dhibkayga oo kala qabaan ay uga faa'iidaystaan in uga gaabin jadwalkaani barnaamijkaani ay sidiisa u raacaan laakiin ani boqolkiiba boqol weli ma caafimaadin laakiin waxaan dareemayaa alxamdulilah isbedel xoog badan oo aad u muuqda walxamdulilah sidii hore waa dhaamaa insha allahu tacalana waxaan isku dayayaa barnaamijkaas sidiisa inaan u qaato hadalkaas waxay tiri 20 beri ka bacdi 3 beri markii ka soo wareegtay 20kaas berina bishii juun 23keedii waxay tiri yaa sheekh naa kristaana ayaa dhakhtarka joogta ma iska toobi karaa waa qofta keliya meesha joogta hadda gabdhihii muslimaadka ma joogaan marka ma bannaan tahay inaa naa kristaana iska toobo mise waxaan sugaa gabdhaha muslimaadka intay imaanayaan isla maalinkii sheekhi usoo jawaab wuxuu ku dhahay xayaak illah wax dhiba kuma jiro insha allahu tacala baaraka allahu fiik iska toob gabadhaas isla maalinkii way soo jawaabtay gabadhii waxay tiri asheekh alkariim alxamdulilah bifadli illah caza wajalla waa istoobay labada mergi dhexbartanka madaxa yaafuuqa tunka iyo labada cagood korkooda tartiibkii ay sheegtay ayaan sameeyey alxamdulilah wax dhibaato lama kulmin intii aa istoobayay ilaa koobabkii ay dul saartay cagaha korkooda markii cagaha korkooda ay saartay ay sarsartay ayaa waxay bilowday cagteeda inay gargariirto iyo minka naftirkiisa wuxuu bilaabay inuu dhaqdhaqaaqo waxaan dareemay inaan iska qaado koobabka cagahayga ka furo laakiin alxamdulilah dareenka noocaas oo kale waan iska ilaaliyey waan iska celiyey ilaa toobintii ay dhammaatay arrintaas caadi miya sheekha 3 beri ka bacdi usoo jawaab wuxuu yidhi xayaak illah arrimahaasayto waa arrimo khayra biidni illahi tacaala jinnigii wuxuu dareemay inuu daalo xijaamadiina aaday u saamaysay wad insha allah ruqya sharciya qur'aankana waxaad ku dhammaysaa 2 wiig mar sidoo kalena stop hadalkeedii wuu go'ay qoraalkeedii wuu go'ay ilaa laga gaaro sanadka 2013 bishii 6 labadeeda akhil kariim abu hebel cilaajkii waa joojiyey muddo dheer ay ugu dambeysay xaaladeeda aad iyo aad u xumaatay shaqadeedii waa nacay 6 bilood ka hor aan ka tagay mar walba isku dayay shaqadeedii inaan ku soo noqdana waaba sii dhibsanayaaba si aan caadi ahayn waxaan dareemayaa inaan matago oo wax soo celiya mar walba dareemayaa cagteeda bidixda aad u dhaqdhaqaaqaysa khaasatan markaan hurdo iyo markaan ruqyada dhageysanayo dhaqdhaqaaq waliba muuqda isha ayna gafaynin gargariir caadi ah maaha sidii hore oo kale nafteeda waxaan ku qaninayaa mar walba waxaan waswaas waaye adaa u malaynaysid wax jira ma ah
laakiin waa istaagi waaya dareenka noocaas oo kale mar walba xaaladeeda way kasii daraysaa markii hore qusl hindiya kusoo noqday 7 xaboo timir ah timirta madiina cajwa la yiraahdo ayaa subax walba intaan quraacan cunaa adkaarta subaxii adkaarta galabtii guriga inaan ku shido qusl hindi cabata sooda iyo sadaabka ayaan bilaabay wareeraan dareemayaa inaan mataga dareemayaa ooyin badan ay dareemayaa 2 maalmood ka hor gacanteeda bidixda dhaqdhaqaaqay bilowday raallahu sheekh intaas ka bacdan ma wadi kari aadaan u daalanahay waxaana ku qorayaa hadalkan anoo aad iyo aad u oynayo sheekhu wuu soo jawaabay islaamaankii wuxuu ku yiri xayaakillah asal allah al-ali al-qadir inuu ku caafiyo labada daarna uu ku asturo waxa kugu naseexinaya ooyintaas ooynaysid ama adreemisid ina rabti ina oysid waxba ka walwalin mataga naftirkiisu waa fiican yahay fadhiga salaada la yiraahdo istiraaxa oo kale u fariiso biyo cab nus litr ama ka badan farta afka galiyo mataji koobka yar oo qahwada carabta ay ku cabtani waxaad ka buuxisaa oo laliifa subax hore intaada quraacan hal mar cab hadii mataga dareentid ismataji hadii caloosha ku soconaysana ha ku socoto suuratul baqara maalin walba dhamee hal fadhi ku dhamee biyo qabow ku qubayso ducada badi sadaqada labax xuska ilaahay si caam iyo si khaas u badi haka walwalin waxyaalahan dareemisid ولكن حوجة waxaa saarta ilaajka aan ku sheegay khayrna ku bishaarayso biidnillahi ta'ala labi barika bacdi way soo jawaabtay waxay tiri jazakallahu khayr miisaanka xasanaadkaadana ilaahay ha kugu daro waan bilaabay waxaad ii sheegtay waxaan ilaahay weydiinayaa subxaanahu wa ta'ala weydiinayaa dadka muslimiinta oo jiran sidoo kale inuu caafimaad degdeg u siiyo halka sababkeedii ku go'ay ma dhamaaday Allahu a'lam arrintan waxaan u tarjumay xaqiiqatan waa arin heysata dumarkeena badana iyo ragga qaarkood oo runtii ilaajka ma aragtay heesta oo yaqaana oo ilaahay azza wa jalla u fududeeyay oo ilaalinaynin oo xaaladooda marna kor tahay marna dhulka tahay oo isbedelaysa oo dadaalaynin taas un baa u dambeynaysa 2 sano ayaa la rafaadsan yahay oo ujeedaan qaarkiina waxa laga yaabaa ka badan inaad rafaadsan tihiin marka ilaahay xuskiisa hala badiyo adkaarta hala ilaaliyo quraanka hala dhageysto quraanka hala akhriyo ilaahay hala bariyo sadaqada hala la baxo ilaahay azza wa jalla halo noqdo jinnigan ku dhibaayane ilaahay azza wa jalla jirkaadu u xabsay qof maxaabiis ku ma iska celin kari weyn ilaahay ni sahlo wallahu almuwaffaq wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wassalamu alaykum